ودي ciidanka qalabka siday ee Puntland way meesh waxay u gacan gashay tiim mulaaxo waa dadkaas aqoonta ku yar tahay oo qofkii iyaga ka fikir duwan dictator ka daran baan ku iri Saadaan Xuseen iyo Anwar Saadaad iyo ilaa waa Ambeerka u dhiman ii sheeg Qadaafi iyo bay meeshii Puntland horta u gacan gashay nin la dhoo mulaaxo isaga waa u imaanaya nimankan dabcan waa niman dhiban way waxay ku dhiban yihiin isaga qol la fadhiya kaamirada waa agtaala wuxuu leeyahay ku dhawaaqo leeyahay kan hadda aniga ilmaanta waa waalayahay ilaahay Yaaqub mar Yaaqub waa waalayahay tariibka hore wuxuu lahaa aniga ninkaas ma aqaan buu lahaa waxay idii cadeynay horta anu nin aan dirsaday qareena difaac inuu jirin difaacna ana isugu filan waxa ina anigu run sheegay dadka daawanayaan kala saarayaan inay mulaax ka khaldan nimanka marka caburintii halkaas maraysa marka shacabka Puntland ina u soo ducaysan Soomaaliyeey in Ilaahay qoorta dhibaatada uga suran oo Ilaahay ka furfuro baa horta Ilaahay uga baraya nimanka waaweyn waxa la yahay adeeraday afis bay aniga iga yihiin dhankay ma jecleen inay lacag xaraana qaataan sharciga Puntland ku tuntaan ma jecleen laakiin aniga dhankay afis bay iga yihiin mulaax la yahay mulaax soo fariiso adiga soo fariiso ama muuqaalkan sira badan oo kugu dul istaagay ninkan horta ka dhaansada kan ninkan hadda ka hor in Ismaan Diyaano oo nin Ismaan Maxamuud la ah waraaq soo saaray Puntland waraaqeeda waa taqaanay dekreeto madaxweyne waxaan xilka ka qaaday Asad Ismaan Diyaano waa la soo waxa la yiri war mid gaayo bahar dhul baanta baa la yiri maano nin baa diraad iga qaaday kartaa baa la xilka xabad baa tilis kala daaray buu TV ku soo istaagay boqorkay oo wixii aan soo saaray wax khaldan ahaayeen ama si khaldan loo fahmay wiilkiina Ismaan Diyaano kumaando ugu dar magaalada Garowe saddex nin oo afar nin oo joogta nin kamid ah wasiir waa ina faroolay xasan shiri abgaal iyo maxamuud shido nin la wiil la dholo laysar buu xukumay oo Garowe la dhex jooga waxay dhashay inay warqadiisu shaqaysa iska dhaafay ina faroolay maanta waa wasiir weeye ana adeerka halkan ka salaamaya ninkii saddexaad waa Yaaqub Siyaad weeye waxa idin ballan qaadaya maanta inta balanta la gaaro horta isagu maalin kasta qof ku raatirtaa shalay ma diyaar ku raatiranay wala ka shaqeyn lahaa maanta wuxuu lahaa aaranjaan baa qolay u xirtay 3 sano ka shaqeyn waay maanta ay la tartameen oo tuu yiri waaran baa idin jira maanta waa Yaaqub Siyaad weeye dagaalka Daacish Yaaqub Siyaad baa fashilinaya Yaaqub baa beelay uu kicinaya beelaha waa kicinaya beelaha intii ka dhinta sheegaya sababtu waa maxay aduu midgaan baa dhul baanta baata qof ka dhiman maayo meelihii khamkhamka lahaana reerkaaga ku wareejisay waa ku maamahaya hadda ka hor baa nin laba naag buu lahaa soo laba naagle baa mid yarada gurigeedu ku dhintay hadda waxa la geeyay ninkii iilka markii iilka la geeyay ba min weyn soo dul istaagto waxa islaaway baroonaysa waa waray hebel baa iga dhintay intee soo dul istaagtay wallahi meesha ku dhintay beet waxa u dhaantay beet halkan meesha ku jira u dhaantay beet meesha ku soo dhintay adiga marka xamar markii aad ku soo awoodi was asili weeydi oo nimanka weeyntay lax ku sawireen oo labii eber ku direen oo 30 milyan Puntland ka dhacdana ka qaateen حتى رئيس وزاري كودي أيو دارو كرسي كوفر ياتري رئيس وزاري دارو تجيا توحي أو تلاقي قاتي كنت تطبيح كنت نساح اللي بانبارين حاسس الشيخ كانت سدحات كتيرة يا لو كانت كوات كتيرة بالعقل أديك حسن إذا كوكر ترى كل شيء حسن كانت سدحات بكتيرة أنا مدة كوات بكتيرة بقول كو صورة أوكي أديكت وأنا كان على كان كرسي أتكلك إحسن تركك حسن بقروح بدنا وها ما تيدين بلنقاضية أنا دني وانتو TV soo istaagay riyaadi galay ina aragtaan shalay waan markaas ku dhacnay maanta waa kan yahandadayo oo ilaa uu amaano oo dadkii isaga ka haray inta kale waxaan aamusiyo waxaan ii sheegeen rikaato ku qabsado koo waxa la ii sheegay waxta baasaboorada ka qaaday waa la ii sheegay oo maanta duuli karin koo waxa la ii sheegay uu fiidiyoyaalka duubtay thuma wallahi kuu fiidiyoyaalka duubtay lagu yiri oo rakaataysan ninka kaliya oo qaba waay waa Yaaqub Siyaad wallahi billahi tallahi dunida hal yool baan ka leeyahay waana ka sargaaraya saan farmaajo filada uga saaray baan filada Puntland kaaga saaraya waraaqdan 10 sano soo duubatayna inta duubata baan ku yiri ma inta duubato fitada gasho mudada hadda soo socotana waa kugu imaanaya Garowe nin reer Xuseen iyo nin bahar dhul baanta ki Garowe ku awood weyn taariikhda dadka daawanaya ba lagu kala ogaanay taariikhda xusi doonta ki awood badan laakiin maanta oo fiidiyoyaasha reaction ka bixi meel walba magacay ku shaqshaq meel walba aniga igu hayso meel walba tiraada ninka lacagtu iga diiday waa nin waana way laaluush baana ka rabin wada shaqeyn baana ka rabin
hal wax baa kaa rabaa bes soomaalina u sheegaya ilaahayna waa ogyaa kursi anaa ka kacdid wey laakiin waxaa ballan qaadaya maa yubadalu lqawla ladayhi ila raqiibu lcatiid laba malaa'ig baa garbahayga saaran waxaan ummadda soomaaliyeed u ballan qaadaya inaanan kelmad been aan weligay kaa sheegin halkaa kelmad beena kaa sheegaya oo ku caayaya intaa kusoo fariistaba caay kaa dhaansanaya laakiin inaanan been aanan sheegin waa nidar ilaahay waa adna kaa sheegin qof kalena ka sheegin inaan wixii runtaa bes ummadda soomaaliyeed usoo gudbiyo waxaa soo haray maalowta macalin maxamuud baa hadlay sheekh maxamuud oo nin leelkasa ah baa hadlay markuu ninkii leelkasa hadlay baa waxaa dhacday waa loo daatay CBB soo daatay kuwa oo haysta alkulistayaal u daatay daacish weeye dhiiggiisa lagu xalaalsanaya sheekhaas sheekh maxamuud labada sheekh oo ka horreeyayna shabaab baa dilay sheekh doctor axmed iyo sheekha la dhaho sheekh cabdiraxmaan gacme adeerkay sheekh cabdiraxmaan labadan waxaa dilay shabaab iyo daacish baa dilay ninkaana hadduu rabaa inuu dilo ninkaan leelkasa dila dani baa dilay hadda kadib ogaada ninkaan le puntland baa maanta difaacaya iyo buuraha isku qaadaya buurahaas wuxuu ka doonaya horta anaa idiin sheegayo meesha wuxuu usoo wadaa ciidan etoobiyaan ah inuu dagaalka markuu kusoo fashilmo oo ilaa yacquub siyaad baa fashiliyey kadibna ciidan etoobiyaan uu ninkaan meesha ka soo 15 kuna oo mucaaradka afka kaga garaaco oo weligii kursiga ka degin meeshaas soo hartay Soomaa waxa laga duqeyn doonaa waan ogaan doontaan Yaman baa laga weeraraya Yahuud iyo Mareykan busaldhig ka siinaya Yaman baa laga duqeynaya Yaman aad markay boosaasay iyo garowe iyo duqeyso balaast ku garaacdo baa war inoo yaala ninka waxa la soo shaqeysta ciyaalkiisa Dubai u degan yihiin hal mid oo aan yahay garowe iyo deegaanada u jooga haddii meesha guul ka timaado dagaalkaas khawaarij lagu jiro haddii guul ka timaado taliyaha ina Cabdi Xaashi kow oo taliyaha daraawiishta Puntland libinta iskale labo general qaliyara sareeyo guuto qaliyara oo ku magacaaban xoreynta buuraha calmiska iyo calmadow ninka saddexaad waxa weeye ninka la yiraahdo muumin oo intaas ciidan guraya oo baraayo guraya oo shaqeynaya oo duurka u hurda hadday guul darro ka timaado Soomaa midgaanku dhalay caloosha weyn leh ba oo bahar dhulbaantaa qaadaya dushan ka saaraya لا يسأل مسؤولية طلع وميكروفون وين واخد بقاضنية أما يرى يعقوب داعش أما يرى يعقوب ما تصمم على ذوي تقعنا أنت عن هاللي أو عن أنت كهاللي قبيل عن عيدك كذا وقف في مترو أنا عيدك قرب يستعجل معه تليا عن وقف فين مترو غير عن وحكلي من أو بين كشيء أنا مترتو لكن إيه كمان عليه وعليه ما أنت بترى إيماني سدت كري بترى أيام درا يا سته هرجابو دتك هرتقو نود بكود جرايين أنا مدحوينه ما أنت ما دفاعي كرتي شعبور يا صاح قرن يا ميجاكته ويلا لا ويا حبت كريدية عادينا وعقوا حكم عيسى ويلا عاية فلو يقول علي ما صاح قرن يا ميجاكته ينمك على الكسمات دي وهذيك وهذيك العريق ساعد واحد سنة عيدا حاصلين لا وحي مدك حبت كريدنا وشباب لا الكسح حتى شباب كشاب دي هذيك وحي حكوا يديه أما عقلي كاسوجا بعيان ترى مد باس كفر حسنة ما ما أنت بعيد وقفت ضل حري إنا حبر حرين هذا يبال نور دوغلي مساجك على جدود مزجواي عادي عمارة قال كعيو إلا حمر ما أنت كفران دول كاسنا معقول لكن هو يوين صوماليات بكونور أو قشن يا شباب يا حران هيست عف بان أنو كيكي إذا كحوق الدرك الصومالي أنا هذا ما أجي شري ولا قبيلة اللي هو بي وإحنا ما عاد كيسن كرت فلي ولا لي لكن إنك ترتن كل شفته وأنك هذا كنت نيو سجال اللي بارا هيسته يسوي صوت ولا هيسته بيحكي كاشف تيوي ساس اللي جاي عقل بديه ساس اللي جاي جيسية قال كعيو إلا من حمر ما تسكفران ده الحوار يهالي ده هذا ما حوار يسيلا ده قال بس عده براح حوار ثاني جيش هل تولول ما بدل لقيه يسني بورا على المسكات جودت كان عقب ورجودت كان قبل كبر ساسي وسميسي وعمل تاريخي نوي جودت كان ورجو ساسي هاي هذيك يو كاميرا عيدك كوسي دحسي ديسي إذا ما الكاميرا النوي ده كله بدو هاي إذا ما بدل أنا كفرين بقدره وعلى يا دجال كاري يدري يوصل سامين لكن أنا مرة بحكي كشقينية نمك السراكيش إذا هو جامين إن على بنته وشيء beelaha Puntland ay ka dhinta difaaca Puntland ku dhintay inaan qiro libintooda waxa soo haray xuquuqdiina inaan sheegay inay mishaar qaadan oo wixii la mas'uuqay oo mina baarka reer gooniyo u gacan galay oo cid aan dhimanayna aan sheego waa balan ilaahay weey
laakiin askari horaan ahaa askartuna waa saaxiibaday waxaan ka bogaadinayaa intii dhimatay ee shahiiday kitaabkooda midigta Allah ka sii waa shahiid inta dhaawac ilaahay ha u boogadhayo oo jaraan xanaana ugu horeeyo iyo dhamaan ciidamada kale waxaa la anaga guuleysana guushana annaga iskale dibiro iyo faamilkiisu ma leh baa dhulbaantiisa aan xabad ka dhiman barnaamijka inta kulmi doono leegto muuqaalka meel dherbegeysa loofka aniga Yaqub Siyaada baalaha iga data ha ii baqin in aniga la aamusiyo ha ka baqin in masiirkaaga gato oo intaan laaluush qaato iska aamuso habeenka xalay tagay